fadeexad iyo ceeb aad u weyn ayaa maanta ka dhacday hotelka Jazeera xilli uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo arrintaasi ka carooday isla markaana ku baaqay in la qaado tallaabo degdeg ah ayaa halkan idinkula wadaagaya. Soo dhawaada muuqaalkeena si gudbiya like share gareeya lana sii wadaaga asxaabtiina. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu magaalada caasimadda Muqdisho ugu qayb galayay arrimo looga hadlayay beeraha, waxaana ka qayb galayay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda iyo xubno ajaanib ah, waxaana lagu qabtay hotelka Jazeera oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. waxaa ka dhacday arrin uu aad uga xumaaday ra'iisul wasaaraha, mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha, xubno ajaanib ah oo ka socda beesha caalamka iyo dhinacyo kale. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa mar qura lagu baraarugay isaga oo jeedinaya khudbad tallaabo ay qaadeen saxafiyiinta ka howlgala warbaahinada madaxa bannaan oo waayihii dambe culeysyo dhinaca amniga ah iyo jirdil iyo hanjabaad kala kulmayay hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa NISA iyo booliiska. tallaabadan uu aad uga xumaaday ra'iisul wasaaraha ayaa ah in mar qura isaga oo dad badan oo mas'uuliyiin ah ajaanib ay ku jiraan uu la hadlayay kaamirooyinka ay ka wada dinsadeen goobtan ay ka dareereen saxafiyiin tabasho qabtay, waxna laga qaban waayay dhowr cabasho ah oo ay u gudbiyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inuu aad uga carooday mar qura isbedelay midabkiisa, isla markaana xubno ka tirsan xafiiskiisa ay soo jeediyeen in tallaabo degdeg ah laga qaado saxafiyiintii maanta arrintaasi sameysay, taas oo dhibaato kale abuuri karta isla markaana kasoo horjeeda xeerka iyo sidoo kale nidaamka dowladeed ee dalka, inkastoo uusan si rasmi ah nidaamkaasi dalka uga jirin. xubnahan ayaa ku talinayay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu wariyaashaasi ama saxafiyiintaasi u adeegsado awood ciidan, isla markaana lasoo xirxiro lagana gudbiyo dacwad ka dhan ah in ay ku xadgudbeen mas'uulka ugu sareeya dalka mid ka mid ah, oo ay ku bahdileen meel ay joogeen xubno ajaanib ah, loona gudbiyo arrintooda xeerlaaninta guud ee qaranka si dacwad loogu soo oogo. haddaba sidee u aragtaa haddii arrintan ay dhacdo adiga ahaan? qaybta hoose noogu reeb. ma ku saxan yihiin xubnahaasi in saxafiyiinta ay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku amraan ama ay u sheegaan in uu awood ciidan u adeegsado, lasoo xirxiro, dacwad lagu soo oogo, isla markaana lagu eedeeyo qodobo ah in ay sumcad dileen mas'uul ka mid ah kuwa ugu sareeya dalka? haddaba haddii aan kasoo gudubno arrintan, waxay imaaneysaa xilli xafiiska ra'iisul wasaaraha, gaar ahaan qaybta warfaafinta, uu inkiray jiritaanka saxafiyiinta madaxa bannaan oo xaalado kala duwan oo adag dalka ugu shaqeynaya uuna soo shaqeeyay xilli uu booqanayay magaalada Laascaanood, isla markaana magaalada caasimadda ah uu ka waday xafiiska u qaabilsan warfaafinta rag aan saxafiyiin ahayn oo baraha bulshada isticmaala, lagana reebay safarkaasi saxafiyiintii xaqa u lahaa inay soo tabiyaan xogaha iyo dhacdooyinka, maadaama saxafiyiinta ay yihiin kuwa baaritaan ku sameyn kara dhacdooyinka, soo gudbiya dhacdooyinka xilligaasi taagan, tabiya wararka arrimaha siyaasadda iyo kuwa kaleba. haddaba saxafiyiinta adiga ka ahaan ma ku saxan yihiin tallaabada ay qaadeen? qaybta hoose aragtidaada noogu reeb, muuqaalkeena sii gudbi.